بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم عن داود الميل بكتشفتان دنيا دعالة halka nagala socotaan waa barta YouTube-ka Calas 24 Post taariikhda caawa waa 19 bishii afraad 2023 qodobada wararka caalamkooda ugu daran waxaa ka mid ah sidee looga falceliyay madaxweyne Putin booqashada shalay ku tagay afarta gobol ee la qaramiyay gaar ahaan magaalada Kherson halkaas oo ku soo dhaweeyeen saraakiisha qalabka sida iyo ciidamada dowladda Ruushka ee ku sugan gobolkaas madaxweyne Putin oo ka dhageystay waxqabadka iyo horumarka ciidamada sameynayaan dagaalka kula jiraan dowladda Ukraine ayaa wax faahfaahin laga soo saarin laakiin saxaafadda reer galbeedka ay khubaro ka hadashay arrintaas gaar ahaan TV laga leeyahay dalka Ingiriiska leeyahay marka magaciisa la soo gaabiyay Sky News ayaa arrinta falqiyay oo ku soo qaadan doona ciidamada dowladda Iran oo dowladda military soo bandhigay maanta iyadoo maanta ay u maalin weyn ciidamada qalabka sida sidoo kale warka waxa ku maqla doontaan ciidamada sirdoonka dowladda Ruushka ee magacooda marka la soo gaabiyay leeyahay FSB oo qabtay rag argagixisa oo dhashay dowladda Ruushka ee dalka Ukraine sida ay warbixinta ku sheegeen ayaa ku maqla doontaan madaxweyne Zelensky oo booqday xuduudda u dhaxaysa Belarus iyo Ukraine maanta galabkii dambe halkaas oo kula kulmay saraakiisha qalabka sida qaybaha kala duwan ee ciidamada halkaas oo dhiirigelin ku siiyay asagoo emotion ka muuqato inay jab taasina jawaab waxay u tahay booqashada shalay madaxweyne Putin uu ku tagay gobolka Kherson madaxweyne Zelensky oo ciidamada salaan sharaf ka qaatay ayaa booqday xuduudda u dhaxaysa Belarus iyo Ukraine gaar ahaan xuduudda dhinaca ka saaran bariga ee Poland iyaduna ku hayso oo meeshii ka soo bilaabatay dagaalka sanadka hore ay ka soo galeen ciidamada dowladda Ruushka iyadoo wadnaha farta ku hayeen Ukrainiintu in mar kale ay ka soo galaan ciidamada dowladda Ruushka sidoo kale daawadayaal waxaan haynaa warkii oo faahfaahsan inaad ku soo dhawaataan madaxweyne Zelensky booqashada ku tagay xuduudda u dhaxaysa Belarus iyo Ukraine halka nagala socotaan waa barta YouTube-ka ee Calas 24 Post daawadayaal sidoo kale saxaafadda reer galbeedka gaar ahaan TV-ga laga leeyahay dalka Ingiriiska marka la soo gaabiyo magaciisa la yiraahdo Sky News ayaa falanqeynaya oo soo bandhigay qariirada iyo xuduudda u dhaxaysa Ukraine iyo Ruushka gaar ahaan afarta gobol ee la qarameeyay Ruushyaanku ay ku dareen dhulweynahooda booqashadii uu shalay ku tagay madaxweyne Putin gobolka Kherson waxyaalo badan ayay ka hadleen waxay leeyihiin tan waxay u tahay caddeyn madaxweyne Putin inuu fariin u dirayo maxkamadda adduunka marka soo gaabsho magaceeda la yiraahdo ICC-da macnaha waxay leeyihiin madaxweyne Putin wuxuu leeyahay waan safrayaa cidii xiranka dhamale meesha rabaan ka degayaa sidoo kale waxay leeyihiin ciidamada Ruushyaanka sanadka hore ayaa gobolka Kherson dhinaca koonfurta caasimadda ugu weyn laga soo saaray waxay leeyihiin emotion ahaan ciidamada Ruushyaanka uma fiicna saxaafadda reer galbeedka waxa ogeeyeen ilaa markuu dagaalku bilowday inay saxaafad ahaan iyo dhaqaale ahaan bay uga soo jeedeen dagaal ka socday Ukraine iyo Ruushka sidaa daraadeed saxaafaddu waxay la mid tahay dagaal maaragtay toos uu kugu socdo kale sidoo kale daawadayaal saxaafadda reer galbeedku waxay dul istaageen booqashadii madaxweyne Putin ee shalay ku tagay gobolkaas iyo saraakiisha kulanku la yeeshay laakiin ilaa hadda saxaafaddu ma sheegin wax ka soo baxay oo faahfaahin ah inkastoo uu ekayd kulankaas mid maaragtay dhiirigelin ciidamada lagu dhiirigelinayo asagoo la kulmay qaybaha kala duwan ee bulshada sida oo kale waxay ku beegneyd iidii ortodokska maaragtay kiristaanka qolooyinka kale maaragtay ayaga madhabadoodu maaragtay kala duwan yihiin marka sidaa daraadeed ayuu goboladaas oo dhan ku marayaa booqashada madaxweynuhu sidoo kale daawadayaal dowladda Iran waxay soo bandhigtay dowladtus aad u weyn oo maanta waxay ahayd maalintii dabaaldega ee ciidamada qalabka sida dowladda Iran la asaasay hub noocyadiisa kala duwan oo aad u fara badan gudbisiyo
taangiyo gantaalo wax fara badan ayay soo bandhigeen. Warka waxaan kusoo qaadan doonaa daawadayaal oo nin ballan qaaday ciidamada qalabka sida sirdoonka gaar ahaan oo markaa lasoo gaabshay magacooda la yidhahdo FSB ee dowladda Russia ayaa argagixiso kusoo qabtay gobolka Kerch. waxayna dhaheen ciidamadaas Raashiyaanka oo sheegeen inay doonayeen raggan inay qarxiyaan xarunta laga dhaliyo korontada ee ugu weyn magaaladaas. sidaa daraaddeedna waxay yidhahdeen way ka hortageen waxaana ku qabteen qalabkii waxay rabeen inay wax ku qarxiyaan. dhawaanna waxay sheegeen in lasoo taagi doono maxkamadda. sidoo kale daawadayaal warkii oo faahfaahsan waxaa kala socotaan barta YouTube-ka ee Calas 24 Post. had iyo jeerna waxaa nooga barateen war faahfaahsan oo hufan oo ku saleysan xaqiiqda. daawadayaasha dunida dacaladeeda meel walba kala joogtaan waxaa shargaraysaan barnaamijkan qeybaha kala duwan ee baraha bulshada. raggan hadda u jeedaan waa ragga lagu soo qabtay maanta howlgalka ciidamada sirdoonka ee FSB-ga ee Russia ay soo qabteen. waxaana lagu soo eedeeyey argagixiso. waxaana laga soo qabtay guriga ay deganaayeen magaalada Kerch ee dalweynaha Russia ka mid ah. waxaana la rabay inay qarxiyaan telefoonada sida laga helay oo telefonkooda ku jirta in maaragtay ay qarxiyaan warshada korontada dhalisay ku taala magaaladaas. sidoo kale daawadayaal dhowaan waxaa la rajeynayaa in cadaaladda la horkeeni doono dalweynaha Russia. dhawaanahan waxaa ka dhacay gudihiisa maaragtay falal argagixiso iyo falal maaragtay lagu waarsanayo ragga taageersan dagaal ka socda Ukraine iyo Russia. kusoo dhawaada ciidamada qalabka sida ee dowladda Iran oo dowladda military soo bandhigay maanta. پهپاد جت کرار نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با قابلیت اسکرامبل و رهگیری هوایی بمب‌افکن علیه اهداف متخاصم با سقف پرواز بالای 40,000 تا بیگمان پهپادها یکی از مؤلفه‌های قدرت دفاعی با رویکرد مبتنی بر بازدارندگی مؤثر است. با امکانات پیش استقلال، امنیت و تمامیت ارضی ایران بزرگ است. بینندگان ارجمند، همینک شاهد عبور هواپیماهای سائقه برای برترساز تجهیز شدند. تجهیز هواپیماها به سرخشوران عرصه دشمن ستیزی‌اند که در میدان مردمیاری و همدلی صاحب قدمان اقدامند. در روزهای سخت و کم خودروی کیان 800 با قابلیت جابجایی تانک‌های سری تی، توپ‌های خودکششی، نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران به سنگ محک شهادت بود خواهد آمد. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اینان مظهر اشداء و علی الکفار رحماء و بینهم هستند. دانند زیر بار خلع سلاح نخواهیم رفت. را نبی قبیله سلمان خطاب کرد، روی غرور و غیرت ما هم حساب کرد. ای پر اراده ایم ما مثل کوه پشت بر همینک شاهد عبور موشک هوا به سطح ستار و قائم هستیم. موشک کورونیک هواپایه با تیر فرکانسی گسترده، بمب هوشمند هدایت. بینندگان ارجمند، مینه‌های گذشته از توانمندی این نیرو در آسمان قدرت نمایی می‌کنند. بالگرد جنگ